su-aasha ugu horreysa ay soo gaartay waxay tahay sheikhuna alfaadil nin wiil Soomaali ah ayaa wuxuu leeyahay xaaskiisu waxay aadaa aroosyada haade marka ay arooska aadayso wuxuu leeyahay si weyn oo aad iyo aad u qurux badan ay u labisataa oo mararka qaar masayr ayaaba ay galaa diricbadir wuxuu ka khafiif badan yahay maraba maraday ka qurux badan tahay ay qaadataa marka aan weydiiyana waxay ii sheegtaa in aroosku yahay aroos islaami ah maalin maalmaha ka mid ayaan weydiiyey oo aan iri oo wiilal ma yimaadaan miya aroosyadaada hadda waxayna igu tiri maya wiilal badan ma yimaadaane ninka horta aroosaya waa uu joogaa 2 ilaa 3 nin oo malxiis ah dhowrka nin oo kaamirada duubaysa iyo dhowr nin oo kale oo qaadumin ah ayaa nala jooga intaas haddaan kuusii raaciyay khibradeyda sheikhuna alfaadil hadda teknolojiyaddu waxay maraysaa meel sare oo arooska markay gabdhuhu joogaan xataa hadday keligood yihiin iyaga inta iska soo duuba waxay soo dhigaan facebooka iyo youtube-ka iyagii oo qaawan oo aad arkaysa inay keligood yihiin laakiin jirkoodii u muuqdo marka wuxuu leeyahay sheikhuna alfaadil maxaad nagula talinaysaa falyatafadal mashkuuran wamaajuuran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلك أرد الدعاء بآد بدو ما أصنتهاي إلهي أقبل إلهي قعبه وتاقن تبارك جل وعلا ثانيا سائلك وحولي هاي حاس كيب وحي أدى أروسيانا دروعي يدر آدو قرح بدنا ويقالتا إيا انتي وسائلك وتلمام انتبه arrintaas macnaheedu waxa weeye khatar bay ku tahay jiritaanka guriga saas waa loo soo qoray ayaan rajaynayaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala su-aasha waxaan doonayaa inaan ninka xaaska qaba aan hal kelimo aan ku dhaho ama nin kastoy arrintaa qabsato gabadhana hal kelimaan ku dhahayaa mujtamaca bulshada Soomaaliyeedna si khaasatan mid baan iyadana ku dhahaya horta ninka waxaan ku leeyahay halkaa dacwo ayaa kaaga furan ilaahay inaad ugu dhawaato tabaaraka wa tacaala xaaskaaga inaad wacdido xaaskaaga inaad munkarka aad ka reebto markaad ka reebaysana aad waddo wanaagsan u marto horta waxa weeyaan waa adiga waajibka ku saaran waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo aroos baaba laga hadlayaa munkarka maxaa keenay saa'ilka ayaa munkar fara badan sheegay ood maqlayseen oo waxa weeye meeshii ikhtilaal rag iyo dumar isdhex yaacaya mid baa duubaya mid baa camera duubaya mid baa minxiisa kii laftiisii wax guursanayay meesha rag baa jooga marka su-aasha da'da weyn waxay tahay gabadh yahay muslimadda ah rumaysay alle iyo rasuulkiisa rajaynaysa maalinta aakharo inay rabbi hor istaagto tabaaraka wa tacaala ma kuu bannaan tahay inaad halkaas aada isku qaawiso gabadha hadalkaan ku dhihi doono wey laakiin ninkan waxaan leeyahay waxaa kuu bannaan dacwo inaad horta xaaskaaga gaarsiiso dariiqo wanaagsanna u gaarsiisa biidnillahi tabaaraka jalla wacalaa taasi waa midaan adiga ku leeyahay marna ha oga raalli noqonin maxaa yeelay xumaanta qofka xaaskiisa oga raalli noqdaa waa dayuus sida uu nabi moxamed noo sheegay sala allahu calayhi waali wasalam wadayuusu laa yadkhul janna dayuuskuna janno ma gala ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayh wasalam wuxuuna nabigu ku fasiray dayuus waa ninka reerkiisa iyo xaaskiisa iyo xumaanta iyo qaawanaanta iyo waxaasoo kale oga raalli noqda ee qaado ee baabuurka ku qaado ee ku faraxsan ee ayaa dayuus la yidhaahdaa horta kelimadaasaan adig ku leeyahay cajaladaha u gee culummada ku xig muxaadaraadka u gee muxaadaraadka gee ay dariiqo kasta oo aad wanaag ku gaarsiin karto insha allah warta ku gaarsii reerkana ha duminine sabar iyo dulqaad u samee adiga kelimadaas baan ku leh gabadha waxaan leeyahay ereygii adadaadi dhexda kaan ku joojiyaa waxaan lehay gabadha rajaynaysa ilaahay iyo inay rabbi hor istaagto maalinta qiyaamo iyadoo qaawan jannana ilaahay ka rajaynaysaay cadaabkiisana ka baqaysaay miyay kuu bannaan tahay in meelahaas oo kale lagaaga duubo cajalado
meelaha ay raggu joogaan gabdho ayaad leedahay gabdhahaaga ma oga raali noqon lahayd in meeshaasoo kale intii laga soo duubo in facebookyada iyo youtubeyada laga daawado ma oga raali noqon lahayd ayagoo qaaqaawan sideed haddaba naftaada aada oga raali noqotay arrinta wuxuusan allana ogolayn rasuulkiisuna uu diiday calayhi asalaatu wassalaam zawjkaagina uuba kula yaaban yahay le waxta waan masayraa qaabkaad u labisatay way gabadhu u aadaysay xafladda miyayna ahayn arrin maalinta qiyaama wax lagaa weydiin doono ninkan le waan masayray miyuusan xaq kugu lahayn inaad isu qurxiso asaga quruxda meesha ugu dambaysa bedelkaad ku qaabilayso dharkii basasha iyo qiiqa iyo jikada aad ku qaabilaysa asaga goortaad xaflad aad u aadaysana 5 saacadood aad labisani qayb aad timaha siini qaybna aad maxaa lehe jirka siini qaybna labiska iyo sida kugu soo bixi aad siini qaybna barfuunada iyo cabara isticmaal aad siini indhahaageed kontarooli xiribahaagi iyo sunniyaha aad kontarooli bishimaha waxaa marinaya aad kontarooli haddana aad isleedahay maanta yaa lagaa qurux badnaanin kaala daranta diraca lagu tago caawa arooskani laguma tago aroosyada kale waa ceeb weeye curfiga dumarka aroosyada taga curfigooda iyo dhaqankooda waxaa weeye heblaayo ceeb waxay ku noqonaysaa inay hal dirac ay 2 aroos ay ku tagtay marka kanna waxaa weeye intaasoo lacagana waa laga soo bixiyey ninkaagaa xaq ule inaad ugu labisato gabaday haddaad alla ka baqaysa tabaaraka wa tacaala jirkaaga ha ku qaawinin meelahaasoo kale reerkana waa kaaga dumayaa rabbina waa kugu caruurayaa tabaaraka jala wacala nasiixada ugu dambaysa waa nasiixaan u jeedinaya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka markii koobaadna ma aha haweenka waxaan leeyahay ilaahay oga baqa tabaaraka wa tacaala ummadda iyo bulshada fasahaad fara badan oo aan la soo koobi karin baad dhinaca aroosyada aad kaga haysaan bulshada culays badan baad ummadda kaga haysaan dhinaca aroosyada culays badan masaajidada iyo culumada iyo ducaadda iyo dadka khayrka jecel ay idinku kohorhayaan oo qalbiga ay idinka necab yihiin oo qof walboo noocaa sameeya ahay inta aan gabdhaha xijaabka u sharxaynay hal habeen baa lagaa dhigayaa gabadhan intaa diinta u sheegaysay masaajidkii buuxay waxaa weeyaan habeenka oo xaggoo haweenun baa la dareeraya haweenow ilaahay ka baqa war waxaad naarta ugu badateen bal dib ugu noqda ee nabigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam war wuxuu waa nicmo war guurku waa nicmo war nicmada ilaahay ku shukriya war nicmada ilaahay ku mahdiya tabaaraka jala wacala war nicmada ilaahay yaa lagu qooqin war nicmada ilaahay yaa lagu xadgudbin war nicmada ilaahay caraha ku kasbanin war cuntada aad cunayso arooska eed ku faraxsan tahay iyo labiskan quruxda badan yaa ku siiyey allihii ku siiyey ee jirkan quruxda badan ku siiyey ee labiskan quruxda badan ku siiyey ee cuntadan macaan ku siiyey ee fursadan ku siiyey inuu 2 qofood daqiiqado ka hor xaaraan kala ahaa in erayo la aqriyey kelimaad la aqriyey ay xalaal iskugu noqonayaan is ogolaanayaan isjeclaanayaan war arrintan nicmadaasi shukrin bay u baahantay war ilaahay ha laga baqo adduunyada waxaa ugu cadaab kuro faqiir kibir badan wax naga dayn badan oo naga dayacan oo haddana markii aroos la dhigayo naga kibir badan oo naga boodbood badan ba idinku weligiin miyaad aragteen ilaa aroosyadii dhalinyaradii ay ku dhici kari waayeen ilaa aroosyadii ay qaali noqdeen yacni habeenkii noocan ahayd habeenkii cilaansaarka habeenkii sidan ahayd habeenka ragga cuntada kii dumarka kii shaashsaarka ilaa shaashsaarkii uu tuugsi noqday oo islaantaan gabadheeda aan shaashsaar u maalinta 7aad oo haweenka intaasoo lacaga ka aruursanin waxaa weye islaantaa way dhacanta anigaba intaasaa layga qaaday anna waa inaan intaa ka qaado saxan baa lagu gudaa
tii mataqaanaa keeni weydana malageed baa galay dacayd baa suuqa loo gelini to walba markaasay marka wixii ikhlaaskiina waa ka dhintay fasahaadkiina waa ka batay war haweenow ilaahay ka baqa raggana waxaan leeyahay war dumarkiini qawaamadoodii soo ceshada oo carruurtaada la saaxiib oo gabadhaada la saaxiib oo gabadhaada ha ku ogolaato biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ha dhahdo aabbahay waan jeclahay asagaa i dhalay asagaa i soo koriyey wuxuusan raalli ka ahayn ma yeelayo aabbahow see wax loo dhigaa adaa maamulaya adaa injineer ka ah adigaa dawawal ka ah adigaa baylood ka ah adigaa qaa'id ka ah adigaa ninka ii dooray shalay ama anaa doorto waad igu waafaqday adiga waad i jeceshahay jirkayga cadaab ooma ogelid inuu reerkaygu durbe iga duba ma rabtid cadho alle ma doonayo adigana magacaaga kuma ciyaarayo muslimiin iyo mu'miniinna kama cadhaysiinayo qalbigana igama kahonayaan aabba sidee wax u dhigtaa allahu akbar sidaas baa la doonayaa reeraha inay ragguna ay gabdhahooda oga shaqeeyaan oo ay saaxiibo la noqdaan oo haweenkuna waa inay rabbigood ka baqaan oo ay ragga oga dambeeyaan ama ay la tashadaan ama wabitaali calaq sharciga meesha ugu dambaysa sharciga meel ka sarreeya maa jira ay sharciga u khushuucaan oo u khuduucaan wa ilaa hadday ujeeddada noqoto gabadhu waa habeenkeedii gabadha halkan habeen bay adduunyada ku leedahay maya gabadhii saaxiibteed baa dee hotel mataqaana iken star five loogu sameeyey intaasoo cunto ah baa lagu cunay yacni aniga hadduu noocaan noqdaayey kaasi aroos lama dhaheen waa tasaabuq iyo tartan waxaa ka dambayn doono dayn culus iyo xataa gabadha si kastoo lagu qurxiyo ayadoo la xamanayo baad ma arkaysa siday ahayd ma arkaysa siday u labisnayd haweenka markaanu waraysanay xal baaba lagala soo noqdaaba marka horena waa loo durbaantumi tii wax laga aroosay iyo gabadhi la aroosay intaba caydooda marka dambe meesha kala soo noqonayaan kharash kowdhe cayn labadhe cadho alloo ciqaab wadatana saddexdhe midhaha laga guranayo natiijo fool xuna ilaa dadka alla u toobad keena ma ahaanana ayadana afardhe intaasoo cudurna waa laga dhaxlaa bulshadiina waan hallayseen ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala ninkaa waxaan leehay sabar gabadhaana dacwo wanaagsan gaarsii gabadhiyana ilaahay ka baq tabaaraka jalla wacalaa waxaan leehay haweenoo dhan markii laisku soo duuduubana war aroosyada laga imaanayo 4 subaxnimo iyo 5 subaxnimo aroos ma ahane waa diskoteege war ka daaya fasahaadka ummadda rabbina yaan laga caraysiinin wallahu aclam walcilmu cinda allah Mm-hmm.